nin horta nin dhalinyaro waddankiis ka joogaan ahaa hee marka waxaa dhacday waqtiga dhalinyarta lagu jirana ninka dhalinyaradu waxa weeye waa iska indha badan yahay moogti deemashadiis iyo waxaan ku yidhi ishuusa u wareejiyaa waa gartay gabadh marka anaga jaarkanaga ah oo laakiin waxaan ku yidhi guriga anigu de inay cid ka soo baxday in kale midtooda ma ogaani hee maalmaha ka mid oo casara oo cadceedu liiq sii geliso roob yar uu da'ay ayaa waxaa dhacday aniga oo xaafadda ka soo baxay oo intaan iska soo labistay jawigayga uu saxan yahay oo raba inaan magaalada galo hee shaashadda dicaaw maxaa waaye 1900 qof ku joogtaan tiimaad kaatay please and please aan shaashaddeeda xasuusin intuu cabdicasiis hadlaayo 1 milyan bayna gaadhsiiba shaashadda hal mar noo garaaca sheertana hal mar dhammaantiin sheegaray intiin hadda soo gashay weli aan sheegaray maxaa tiri cabdicasiisow marka waxaa dhacday waqtiga casarka ahayd oo intaan iska soo labisay jawigaygu iska degan yahay oo waxaan ku yidhi roobna uu da'ay oo magaalada raba inaan soo galo baa ilaaha markii waxaan arkay gabadh waqtigaana waxaa jira markii yar casarkee tahay gabdhuhu xaafadda horteeda kaawada la iska soo fadhiistaa halkaas waxaan ku jawiga la iska yar qaadanayaa waa gartaa gabadhaas markaa isha ku dhuftay run ahaantii aragti ahaan aad bay ii qancisay laakiin markaa awoodan ugu taga malihi oon ula hadlo moogta marka waxaa dhacday waan markaan saa arkay inay albaabka hor fadhido oon arkay inay guriga gashoon hubsaday waa iska sii dhaafay marka habeennimadkii markaan guriga idhi ayaan waxaa dhacday walaalaan la hadlay mooti gabadhan walaalnahay baan wareysay waxaan ku yidhi xaafadan jaarkii nagu dhegan ma yaa galaan ku yidhi ma gabdhiyo xaasa kaloo haa gabadh baa gasho bay igu tiri moogti okay waan ku yidhi gabadhu magaceeda hebla la yidhahdaayo oo walaha saasoo bareefadka halkaas joogay habeenkii tagtaa bay tiri moogti walaashaba weydiisay bareefadkii wixii markii saa igu sheegtay waxaan marka anigu aan u kurgalay inaan bareefadka macnaha anigu sidii aan bal ku arki lahaa aan xagga ka raadiyo waa gartaa aduu habeenada ka mid ah waxaa dhacday marka bareefadka marka lagu jiro waxaa jirta intay galaaska kale ku jiraan mooy kuwa kale waxaa jira practice baa la qaadanayaa marka oo wada sheekays baa la sameynayaa kadib waxaa dhacday gabadhii aduu calaa kulli xaal way soo baxday iyadoo gabdho kale la socota marka waxaan siri gabdhaha kale kalama dhaxali kartay maxaa samaysaa waan soo daba raacay labadii gabdhihii la socday markay ka leexdeen inay keligeed noqotay ayaan jaasu ka helay waa gartaa waa soo raacay waa iska sii yar sheekaysanay waxaan ku yidhi anada wiilkan jaarkiina halkan galaanahay haala wallaha anigu waan ku aqaanaa bay ku tiri anigu waan ku garanayaa marka waxaan ku yidhi okay way laakiin anigu weli kuma arag baan ku yidhi waxay ku tiri anigu mala soo baxo qof bixitaan badanna ma ihi halkaa mar keliyaataan bareefadka imaadaan soo baxa kadibna xaafadaan ku noqdaa aduu gabadhii maadaama jaar noqonay ana si fiican bay ii garatay waan yar wada sheekaysanay okay waan ku yidhi waayahay isla markiiba gabadhi marka lambarkeedii baan ka qortay marka waa gartaa lambarkeeda telefoonka gacanta markaana markaa telefoon yaroo dhagaxlo iska yar kuwa yaray waa iska igu tuurtaan iska watay boogti gabadhii markii sidaa ay ahayd baa waxaa dhacday waan wada xiriiri jirnay bareefka marka ka timaado waan soo kaxayn jiray xaafadaan keeni jiray waa iska yar sheekaysan jirnay waxaa dhacday gabadhii marka inaan loof isku hor noqono oo gabadhi aan isu soo dhawaano marka jacaylna dhex maro marka waa gartaa habeenada ka mid ah aniga oo la socda ayaa waxay arkay gabadhii wiilal iyada la dhashay isha igu dhufteen saasay u arkeen marka waxba mayna dhihin anu markaa ma arkin iyada laakiin arkiisoo ii sheegtay kadib xaafadda agteeda markaan u dhownahay jardin yaro agtiisaan markaa ku sheekaysan jirnay jardin kuwa kaabadda wey marka waxaa dhacday habeenkii markii sidii u tagtay habeen labaadkii oo kale ayaa haddana wiilasha isla sidii bay igu arkeen dan waxaa la sameeyey gabadhi markaa in bareefadkii laga joojiyo guriga lagu xidho anigu ku dili laabe ninka walaasha la socda maydaan disheen aan ku garaaci lahaa wallah habeenkii markaa waxaa dhacday kadib gabadhii in bareefadkii laga joojiyo telefoonkii laga qaado meel aan kala xidhiidho ma garanayo anigu waxaan ku yidhi loofku waa igu sii badanayaa halkanaan fadhiya waxaan qaadaya anigu muxuu nabaar ka cashaqo
iigaystina fahanayaho oo nudubtaho iyo naxariista biyo kalgacal dadkaygii joogilah lanogey oo nabadda dhexdeena waawinaynayahay iyo jabayay cadaawaha halkaasaan cuskanayaa moogta intaadii nuglaysayo ifka tobanka noo nafsiba adeeg waxnaba markaasaa waxaan ku yidhi halkaasaan joogaa iyo waxaan ku yidhi anigu waxaan qaadayaa mililacada quruxdiyo inanta ma jirtay muuqaagu waxaynaa markaasaa waxaa dhacday muddo markaasaa ahaa oo waxaan ku yidhi gabadhii meel aan kala xidhiidha aan garan waayay yaa maalmaha kamid a waxaan ku yidhi si kedisa ayaa waxaan ku macnaha aan ku kulanay afaafka markaan xaafadda kasoo baxay waa xilli yaroo duhur oo qada anigu salaad duhur baan kasoo baxay waan soo socdaa heestii laydin qaadi jiray soo wada qora anigu waan idiin sheegaya heestii laydin qaadi jiray ku soco kadib waxaa dhacday markaa duhur baa salaad laga soo baxay duhurkii marka salaad duhur baan kasoo baxay xaafadda usoo qada doonanayay markaan xaafadda ag socoteena jaar baan ahayn ayaa waxaa kasoo baxday xaafadooda gabadh marka aniga muuq ahaan caadi ahaan waan garanayay waa gabdhahan jaarka ah weey ayaa kasoo baxday gabadhii baan la hadlay waxaan ku yidhi xaafadana kasoo baxdaa hebla may joogta waa saa weeye okay waayahay waxaan ku yidhi xilligii aduu duhur bay ahayd hadal badan kuma badinin marka waxaan ku yidhi inaan kula yar kulmo waqti baan u baahanahay casarkii oo kale meelaha ayaan isu nimaannaa okay bay igu tiri iyadii baan markaa u imid gabadhii baan wada kulannay arrinteydii waxaygii baan uga sheekay waxaan ku yidhi gabadhaa meel aan kala xidhin ma jirto waana jecelahay brefatkii iyo intii jansiga noo ahaydna waa laga daboolay oo waxaan ku yidhi waa loo diiday marka adiguna maadaama gabadh saaxiibada tahay gurigana aad gelayso inaguna dad asxaaba korkiskeen naqanahay dad i caawin karto ama aad bal magaranaysaay aad xal ii heli karto yani garab baa ku weydiisan lahaa gabadha ii soo saar marka waxay igu tiri niyo gabadha inaan saaxiibanaha caawa waxay leedahay bay tiri jaamacad maanta jaamacaddii qalin jibisay caawo kale markaa xaflad bay dhiganaysaa waa gartaa xafladaasaan marka anigu u yimid gabadha inaan ifteeshkii wixuu keeno oo caawa halkaan ku casuumanto halkaa ugu tagno waa gartaa waa jansi maan ku yidhi niyon okay baan ku yidhi ana caawan imaanaya moogta haye bay igu tiri aduu dhacdhac waxaan ku yidhi xilli markii makri laga baxay baan soo labistay waan steelkaygaan soo saxay halkii baan imid marka waa gartay sheekadu hadday ku socotaa marka gabadhii baan markaa la kulmay marka waxaan ku yidhi walaali waad aragtaa baan ku yidhi xaaladu say tahay adigiina hadda ma soo bixi kartid oo jansi ma haysatid oo arrinteeni wixeeni waa la ogaaday marka waxay igu tiri marka waxaan ku yidhi maxaa xala baan ku yidhi xal alaal xal aduu kalo oon hadda garanaya ma jiray tiri laakiin hal mid baan anu samaynaya baan ku yidhi waan isla baxsannaa baan ku yidhi moogta acuudu billaahi min ashaydaani rajiim halka wax ee noloshayda aniga soo gelin waana inaan la baxsado inaan lagu soo raacay la soo koriyey dhaqaale la soo geliyey inaan mala dhalatay aabba iyo hooya soo koriyeen baa lala baxsanaya hablo ma ogolaan lahaydin in laydinla baxsado ma ogolaan lahaydin in laydinla baxsado waa gartay ku soco marka waxaa dhacday isla baxsidku macnaa kii guurka ahay ama meherxadkii waxaa ma aha yacni inaan waddada jafkaa soo fulloon tahriib qac ku soo siino waa gartay waa islaamkiuna kadib aduu go-aankii wixii arki markuu saahaa gabadho igu qaatay jaftan soo fullay marka gabadhi waxaa dhacday marka aan soo socno macnaha adsabana la soo saaray gaadhigii saa u soo socno ayaa waxaa dhacday suudaan baana la keenay marka suudaantii markiina la keenay baa waxaa dhacday gabadhu in suudaan markay joogtay ay yara xanuunsatay marka gabadhu markay xanuunsatay intan halkan wareega oo dhan iyo intaa macnaha ayay ka calaacalaysaa waxay leedahay abdicaiso halkaasay xanuunaysaa waxaan ku leeyahay dee iska adkaysaan ku leeyahay moogto waan kolba quraan baan ku tufaa waan ku akhriyaa waxaan ku yidhi faatixada waxaan ku yidhi taxliil baan u tufaa intaasay is haysaa moogta acuudu billaahi min ashaytaan ma uur beleed talo kadib waxaa dhacday maraal markaan saxarihii soo galay saxarihii saa usoo joognay ayaa waxaan ku yidhi saxarii baana lagu daadiyey kadib ninkii gaadhihii wixii way naga tegeen kadib saxarana waad garanaysaa cadceed kulul iyo milic baa jirta marka
gabadhi markaa waxay bilowday inay macnaha matag ay samayso matag uu dhiig la socdo matag dhiig la socdo ay qac ka siiso bahal matagoo dhiig iyo xinjir saa ula socdo acuudu billaahi min ashaydaani rajiim talow ma uur baa maxaad maleynaysaan imsaa uur malaynaya uur baa aniga malaynaya qosolka inta uur malaynaysaa taabta adiga laakiin ma taaban somaa gabadha ma anuma taaban marka haya kadib waxaa dhacday halkii markii la joogo waxay igu tiraa Cabdicasiisow biyo ima weydiinayso baad ima weydiinayso waxba ima weydiinayso hal shay kaliya iga codsanaysaa waxay leedahay Cabdicasiisow har baan u baahanay meel hoos ah haya meel hoos ay geebay tiri macnaha hal intan way xanuunaysaa jirka oo dhan baa dubaaxinaya matag baa ka socda waxay tiraa cadceed oo baadkeysan karo aan waxaan ku yiri meel har oo hadda aan ku geeyaa ma jirtaa ku yiri saxaraan ku dhex jirnaa waadna aragtaa xaaladdu say tahay wax kale oon ku awoodo oon duco ahayn ma jirto mararka qaar aan waxaas dhahaa rafaadkani dhibaatada maadaama aad soo galisay macnaha dee wax dambi weyn baad ku leedahay oo ilaahay baan dambi dhaaf mar weydiistaa quraankan ku kor akhriya adu xaaladii markay sida ahayd baa waxa dhacday wiilal marka aniga ila socdo waan ku yiri saaxiibnimo gabadhu saasi ku sugan tahay hadna ma jiro shaarashi marka anagu aan xidhneen oo dhan baan soo wada bixina marka haya kadib waan isku wada xidhnay meel yaroo jagaaga aan gabadhi yara fadhiisiday dharkii marka shaarashi saas u wada xidhna kor baa saa ugu kor qabanay marka yani si had yar hoos yar baan u sameeynaa idinkaaba ku dul hayaba anaga saa ugu dul hayna marka hoos yar baan uga dhigaynaa maasha Allah war rag baati war maasha Allah soo qora farax luga baasto hablaha markii meelaha joogan way difaacaan maasha Allah waa gartay arrintii markay sidaa ahayd oo waxaan ku yiri aan habeenka nuusa ugu jirnay aroortii baa naloo yimid aroortii markii saana loogu yimid baa waxa la yiri jamaacadadii waa la kaxeenaya marka jamaacadka anagu aan isku jirna laba jamaacad baan kala ahayn nin walba macnaa dee jamaacad walba ninka mas'uulka ah gaari u soo dirsanayay kadib uu kaxeenay marka waa gartaa anaga marka jamaacadkanagii baa gaarigii baa naga habsaamay kuwii kala la keenay waa la saaray gabadhi halkaas ay joogdaa anigu waxaan ku yiri meel yaro macnaha waxaan ku yiri jagaaga yar baan la fadhiyaa dhabtayda ku hurudaa waxaan ku yiri gabadhu xaaladdu waa basteed adiga dhabtaada ku hurudaa kii baan ku yiri marka maxaa la yiri waa cid kale oo miciin kale iyo arxan kale haysto aniga ahayn ma jirto waan gartay kadib waxaa dhacday marka in maxaa la yiraahdaa aan ninkii carabka ku yiraahdo gabadhan kala bal hadana ma isaar gaar markaas yiri anagu dadkan xoosh kale oo meesha u socotaan aan ahayn baan u wadnaa macquul lama hayna saarno waa gartay gabadhi adoo calaa kulli xaal ilaahay meesha waa naga soo samati bixiyay caadi waa xooshka marka naloo keenay Liibiya haya halkii baan iskaga jirnay halkii baan macnaha garanaysaa haddana ay ku yar xanuunsatay mar ay xanuunsato mar ay caadi noqoto xaaladdan ku jirno waxaa dhacday marka gabadha in macnaha iyada lacagtana marka lagama soo dirin haya oo wali lacag jaayis meena noqonin haya kadib marka waxaa dhacday aw lacagta kama bixinaysid miya adoo soo kaxaystay kadib waxaa dhacday marka iyada gabadhi marka horta familkeedii ay la hadleen ay familka ku dhaxeen gabadhiina way taaribtay ku dhaatay taaribtana gabadha xaban ma gelin way saxsiin ilaahay bad ku dhaariyay haddaad gabadh soo kaxaysatay oo tahriib gelisay Soomaaliya aad lacag ka bixisid kadib waxaa dhacday safarkii markuu arrintu saa ahaa oo magaranaysaa iyadu lacag mayna bixinin oo jaayis ma ahayn laakiin anigu lacag waan bixiyay marka kadib haddana safar labaad oo ragga aan soo baxay anu marka lacag waan bixiyay waxa lagu yiri waad ku jirtaa soo bax ma baxaan ku yiri magaranaysaa oo qofka kama tagi karaani arrintii markii saa ahayd baa anigu qorshe waan keenay waxaan idhi gabadhan kama tagi kartid adiga badan soo galiyay adiga hawlahan iyo dhibaatadan u soo horseeday waa in aad xal u keentaa baan idhi kadib waxaa dhacday macnaha inaan familkii anigu telefoonkii aan kala hadli jiray mid aan ahayn inaan ka garaaco oo ku yiraahdo anigu meeshii waana laga kaxeeyay meel kale anagoo safar soconaa nala dhacay dad kale na qabsaday lacag baa markaa looga baahan yahay ma sha Allah hadda fikir keentay waa gartay lacag baa looga baahan yahay markaan idhi akoonkii aan maalin ku qormay akoon kale cusub baan u qoray telefoonkii aan kala hadlay ku kala aan kala hadlay lacagtii sidii ba gabadhii loogu soo diray sidii bay lacagtii ku bixisay sidii baan badda ku soo galo Talyaaniga nimid marka hadda adkaatay marka maxaa soo socday inta hadday toos u adkaatay feelasha xidha qam intii ugu adkeyd bashakad soo gaadhay gabadhii xaaladda markaas soo marnay Talyaaniga markaan nimid Talyaaniga markaan kaamku yirtino xogaa ayaan adana gas u siino xagga ay Faransiistaan ka xidhan marka Talyaaniga markaan nimid ee joognay waxaan ku yiri aan isa sheegano si family ahaan macnaha moogta saanayna loo kala kaxaynin de waxay ku tiri may isma sheeganayne ka dhacbay ku tiri moogtahay waxa laga yaabaa adu waxbay igu qancisay okay baan ku yiri
markii dambe waxa dhacday inaan haddana Faransiiska aan ku gujinaba Faransiiska aadeen Faransiiska markaa tan waxaan ku yiraahdaa dabadii hadda Faransiiska dambe loo dhaafay ma jirto oo Talyaaniga dadku ay soo dhaafaan oo soo cararaan laakiin halkan de maadaama wadan caadi iska tahay oo faraha aan dhiganayno oo halkan aan sharci ka rabno de waa inaan toos isu sheegano macnaha labadina is qorana eedan baa ka baxay maanaya صح وان قبتاد eedan ka amaanka aamusna ama qabo marka waxa dhacday waxay igu tiri mayba igu tiri Cabdicaisow niyo labadeena ma garanaysaa hadda hadaan is qorano waxa laga yaabaa hadana in guri nala wada dajiyo oo guri isla degno inuu khalad naga dhaxdhacana waa laga yaabaa tir moogti gabadhaas ma saxsantay hablow inuu khalad naga dhaxdhacona waa laga yaabaa ado okay baan ku yiri malaha kaamkii markaan wixii tagnay iyadana gaarbay caad u noqotay ana gaar baa u noqday macnaha laba qof ismaana sheegan markaa iskuma xidhneen kaamkii baan iska joognaa dad waxaan rafaadi dhibaataysan soo maray wali sidii baan isu jecel lahay sidii baan isu danaynaa waxaan ku yiri halkaas waxaan ku yiri cuntada aan halka ku wada cunaa mar iyadaan gurigeeda u kaca marna guriga u kaca marka maalmihii markaan baxayno oo kaliya outima iska yar baxnaa oo marka waad garanaysaa kaamka lagu jiro ama ay wax yar ku soo dhacaan oo kale iyo suuqa diirtaygiisa shopping wax yar oo kale waa gartaa kadib waxa dhacday marka arinta marka sida ahayd ba maalmaadkeeda waxaan arkay un gabadhii inay kaligeed baxayso aniga inay ii yeedhaneen inay kaligeed iska baxayso oo kaligeed ay suuqa iska tagayso oo ay soo noqonayso oo aniga macnaha ina keen iyo waxa toona inay dhax adkaatay maxay soo wadaa tala waa gartaa marka waxa dhacday arinta markii saa ahayd ba maalmaha anu habeenkii markaan weydiin ku dhaho maxaa dhacay waayadan waad iga yarbaxay markaas ay ku tira gabdhahan asxaabnahay oo magaalada iska yar badanaan u kacaa bas waxaan sadii hawsha haday gabdha tahay dhimalaan ku waa waqti wada soo qaadan kartaa kuma sii adkeenin habeenada kamid ah marka oo aniga oo suuqana ka yimid oo baska intaan ka herdagay ka marka meesha la soo galay diwaal seer baa dhamoogti halkaas ka yar taagan oo halka ku yar hakanaya baa waxaan arkay baal gaariyo halkaas soo istaagay check gaari soo istaagay gaari baa soo istaagay gaariga yaa watadii la tahay gaarigaas yaa wata ninkeediiba ma saaxiib cusub baa gabadhu jacayl haday lacag aragto walaa ka tahay waa gartay marka waxaa dhacday ado arintii markay sidaa iska ahayd gaarigi markuu saa uga soo degay wiilku gabadh macnaha wiilkii darawalku soo degay iyadana daaqadan dhinaca kale ka soo degtay isha marka anigu aan qac baan ku sii marka waa arkay markaan ishii saa u arkay ishii ku dhuftay gabadhii arkay ayaa xagga loo yar wareegtay xaggii darawalku wiilku ka soo degay wareegtay habbaaba la sirsiiyay moogtay ma la isku dhagay waa habbaaba la isisiiyay waa saas la isugu dhagay waa waray adkaat ma daqiiqada la isku dhagay mise markii in yar xogaa may waa dareemi kartaa dhagitaan ama moogtay kad baa la isku yiri moogtay la ona rajo meydka noo jiida meydka waa gartay marka anigu ishaan saa ugu dhuftay waa eegay waa arkay waxba adoo ma weydiino waa iska soo galay markaan gurigii soo galay waxaan ku yiri waan la hadlay waa garaaco seeto faan ma sha Allah maxaa ku dhacan ku yiri mardood gurigaaga markaan imaadimada joogin anna la suuqa ku maqnaa waan ka soo ridanay mooti been bay iga tahay saygu tiri gabadhan asxaabniyo xabaan u kacayo halkaas aan tagay marka haddana waan soo laabtay gurigayga jooga hayo okay waan ku yiri marka gurigii waan ugu horimaaday waa iska sheekaysan iyo xamaan weydiinin haddana waxa dhacday haddana sidii inay baxdo moogto oo bilaado bixitaanki oo manad weydiin waxa arkaysay ma arkay marka habeen labaad baan hadaba waxaan arkay adu marka ma gaari baad ka dhacday marka qiyaastii may anu gaari ka badcin waxaan ku yiri waa wali marka joogtay marka cilaaj ma lagu geeyay may wax cilaaj oo la igeeyay ma jirto caafimaadkaygu waa taam xayi baan hay laakiin waxa weey waa layda jacaylka ay martay waa gartay waa jacaylkii waxaan ku hayaa gabadha saaxiibta gabadha waan jecel anigu kadib waxa dhacday marka in habeenada kamid ah marka anigu aan isdhaafbaniyo gaarigan iimaanay waxaan u kuura gal oo xiliyada ay baxdo ay ku soo beegan tahay isleeyahay way iimaanaysaa yaa kaamka banaanka uga bixi jiray meeyaro halkaasaan telefoonka iska qabsan jiray habeen marka barkii gaarigu uu yimid xilliga saacada ay ka soo degtay hab la isa siiyay ayaa habtiiba caadigeed waxa la isugu daray in shumisir qac la iska siiyo moogtay ma shumiska in qac la iska siiyo markaas anigu waxaan sameeyay hada waa slow kiski
ها markii hab iyo waxa ay siinayeen ba waxaan samaystay anigu kaamiradaydaan diyaarsaday qac baan ku siiyay moogta ma horta maxaa dareentay kamarada waa ku dambaysay maad suuxin ba maxaan suuxi waxaan ku yiri qalbigu shalay mooy daraad ku dhac yiri haddana sida ay tahay haddana dareen baa iga awood weyn oo kolba waan isqabanayaa boogta waa soo jiiday anigu marka kadib arrintii markii saa ahayd baa waxaan go'aan ku gaadhay gabadha inaan maalin banaanka aan u bixiyo oo bal xaaladda iyo waxaan jira aan ka waraysto oo wixii xaqiiqa ah ii sheegto habeenkii ma weydiin hadana ma weydiinin macnaha habeenkii maan weydiin waan ka dhacay aroornimadkii oo kale markay ahayd galabtii oo kale yani iyadoo imid waxaan ku yiri outing baan baxaynaa banaanka tagaynaa maanta soo labiso oo waxaan ku yiri waa halkaas waqti baan soo wada qaadanaa hayaba igu tiri waa soo baxnay waxaan ku yiri meel yar baan geeyay cafeteria aan markaa sawirkii wixii waan wataa kadib waxaa dhacday markaan hawlihii kafeega iska cabnay in jawi iska qaadanay ee u dajiyay yaa ku yiri waxaan rabaa inaan dhowr su'aalood ku weydiiyo sidii wax u jiraan ii sheeg baan ku yiri waa laba qof oo inagu iska soo rafaaday oo dhibaato soo maru isxaal og baan nahay wixii jiray xaqiiqada ah ii sheeg baan ku yiri waa koow hayaba igu tiri waa ku sheegayaaye macnaha adna su'aashaad weydiinaysay weydii waxaan ku yiri de markaynu kaamkii waxaan soo galay caado waxaan u lahayn inaan habeenkii wada baxno ama de meel wada tagno oo dad meesha iska yaqaano oo iska dhow oo isla soo rafaadaan nahay laakiin waxaad bilowday baan ku yiri in aad adigu kaliya habeen walba aad baxdo kaliya aad soo noqoto waxaad duruufta keentay maxaa kalifaan ku yiri okay dadkan weydiinaya gabadhaasi maadaama ma qaban ninkaasi wuxuu ku haystaa inay kaligeed baxdo kaliya soo laabato musaxsan yahay mise uu khaldan yahay maxaa keenay inaad kaliya baxdo kaliya soo laabato soo ma weydiin هاساسا الويدي ساسا الويدي waxaan ku yiri marka maxaa keenan ku yiri moot waayiga hore dad isxaal og baan ahayn wax soo sheegtaan ahayn wax wada baxa marka hadda maxaa isbedelay marka guursateen maxaa ku sameynaysaa talo waa gartay marka waxay igu tiri ma yaanu da gabdha asxaabtu maan u tagaa waa iskala soo waqti baan iska soo qaataa waan soo noqdaa ereygaas ii dhaaf weeyday moogta markaas waxaan ku yiri hadaba ana xaqiiqda jirta ku sheegayaan ku yiri adoo waad og tahay laakiin say wuxuu jiraan iimaada sheegay baa ku yiri laakiin ana runtii indhaha ka saarayaan ku yiri waxaan ku yiri horta waa baxdaa kaliya waa baxdaa baan ku yiri laakiin kaliya ma soo noqotid waa gartaa waxaan ku yiri waan ku arkaan ku yiri dhowr habeen adiga oo gaari iyo ka soo dagayo oo waxaan ku yiri garanayay de nin kala la socdo oo dhowr jeer baan ku arkaan ku yiri kumana weydiinin kaliyaatan waxaan sugayaan ku yiri inaan waqti ku helo oo balsi yaro degan aan ku weydiiyo waan kareeb aan ku waqti harka intaan ku imaado inaan kugu booqo moogti waa gartaa laakiin ma sameeynin baan ku yiri waxaan rabaa inaan waqtiba ku siiyo oo ma garanayay bal sidii wax jiraan aad ii sheegto markaas ay igu tiri macnaha saa sameeyay macnaha waxa iga dhigaysaa ani waxa iga dhigaysaa qof macnaha ma garanayay de sharaf la qof maxay halkan ay qiiq isku qariso indhaha iga gashay moogti oo ku dafirtay ba way dafirtay markaas aan ku yiri yar sug baan ku yiri sawirkan soo waxaan ku yiri kan maxaa ka jiraan ku yiri la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah baan ku yiri kan iga jahlitir okay way haddaad leedahay waxaas laga been abuurtay kan meel u dhaaf baan ku yiri dookaas sawirkan markaas waxay igu tiri waa in adeerkay waa wiil saasa waa in ku wiil adeerkay tolkay halkan jooga hadani in adeerna imaada sheegin cid tolo halkay joogtan imaada sheegan ku yiri teeda kale in adeerkan la isku dhagiyay hab la isiin la isu shumani maxaa baan ku in adeerku xad buu leeyahay meel buu leeyahay ku istaago markaas igu tiri meeyada khalad fahmi maxay weeye nin shaki badan baa tahay maxay baad keentay hadda nooca keentay boo saa tahay bay inoo kala kaxeebay tiri moogti furka turta ma gabadha saxsan mise wiilka waa in adeerkeeda laga yaabo waa run way waa gartay kadib waxa dhacday bartii anoo fadhiyo inay iga dhaqaaqdo markaas waxaan muddo haddana sidii markay iga dhaqaaqday telefoonka leeyahay qaban waayay kadib waxa dhacday markaa in anaga macnaha transfer noo soo baxo macnaha gurihiina caadi naloo siiyo xagga aan usoo kala guurno ani iyada markaa waxaa dhacday inaan isku xaafad noqono macnaha meel xaafad weyn aan wada deganaano laakiin waxoogaa adoo isku yar xaafad yaroo isku dhowtay sidina ma wada hadashaan marka waxoogaa ma wada hadalo markaa laakiin markaan muddo ka joogay meelaha baa waxaa dhacday adoo 2 bilood meelaha markeed ayaa waxaan damcay inaan soo raaligeliyo adiga soo raaligelisay aniga laftigayga soo raaligeliyo waxaan rabaa inaan waxaan ku halkana waxaan ku tuuranayaa Cumar Dhulo waxaan leeyahay qadar dhacay
aanan maaleeg qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantanayaa dhandhandhan qaar kale ayagaa dilayo isu qonsadaa jira